السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء فتحي يوتيوب كأداونا يسينا وفتحينا وفشيال عاو محا ربنا هنا ودبال دقنو كودا لوليو هابي اندبندنس داي سومالي هاي اسراعدو هابيدودو وعاو حلو دبال دقايا كودا لوليو سومالي هادلتو ويلي حجيسة سيدان فيلايو ماركا همباليو سومالي وين ميل باجوتين دادك كوحيران فتحينا اوفيشال ووضا سلامة يا دمانتون كل إلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاalaha qaaliga meelo dunida caalamka aad ka sugan tahay dabcan caawad walaalaha Soomaaliyeed waxa isku keenay dareemi kartiin waa kooda luuliyo fadxiina official ayaan marti qaaday janaalkeeda marti ku nahay aad hal soo dhaweey gacmo furan qalbi furan caawo waa haween oo qaas ah Soomaali Maxamed Soomaali dunida caalamka meel walba ay joogaan waa haween anaka farxad inoo tahay waa haween adiga farxad ku tahay waa haween hooyo Soomaaliyeed farxad u tahay dabcan walaalaha Soomaaliyeed dabcan waa dareemi kartiin qaabka ka muuqda quruxda wajiyashooda dabcan waa dareemi kartiin fadlan marka ugu horeysa intaada ka hormarin barnaamijkan caawo iyo caweyska waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan ka mid noqo fadxiina official family-keeda dabcan wada han doontaa haddaad ahayn hadda ku biir subscribe noo saar ka mid noqo gambalaalka furo sida ula socotay waqti loo walaalahan quruxda badan iyo walaalo kaloo dhiman dabcan kusoo dhawaada walaalahayga caawna waa kan calanka quruxda badan aan ku wada labisanahay anakoo dhalinyaro Soomaali ah yaa dee waa aragtiin Soomaaliyeey waxaa soo dhawowde adiga markaagaa la joogaa luuliyada dadka dhaca uga siiyo si aan caadi ahayn u qiiraysantaha maqlay way Soomaaliyeysan tahay diniga dhabta allo dhowr Soomaaliha midooda ha israacdo insha okay fadxiina caawo maadaama janaalkaaga aan joogno barnaamijka aan gudaha ugu jirno maxaa dareemaysaa caawo oo kale maadaama tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed dabcan aad anakoo meelo kala jirno isku wada keentay dhalinyartan Soomaaliyeed oo qaarkood baan ogeynba waqtiga iyo calanka la taagay oo aan gadaal kala soo qabsanay dabcan adaa naga weyn intaan meesha wada fadhiyo ما شاء الله dhamaantiin horta soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada Soomaali oo dhan waxaan filayaa inay faraxsan yihiin meel kasta ay joogaan kii ku dhashay iyo kii aan ku dhalanin muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waa maalin farxad u leh waa maalin aan ka midownay guumayste mataqaanaa Soomaaliya waxaa loo guumaystay labo qaybood waa waqooyi iyo koonfur saa taqaanin qof kasteeto waxaa guumaystay Talyaaniga mataqaanaa waqooyina waxaa guumaystay Ingiriiska labadoodana markii ay xornimada qaateen waxay tala ah waxay isku darsadeen in ay midoobaan si uu guumaysto dambe u soo kala dhaxgelin kooda luuliya macnaheeda waa taas haddeertaan waxay jirsatay 60 sano waxaa ka soo wareegtay 60 sano meel kasta ku sugantiin caalamka waxaan idin leeyahay dee farxadiina waa farxadeena waxaa lagu jiraa weeyga xorriyadda ama toddobaadka ama isbuuci xorriyadda haddaan af Soomaaliyeeno dee Soomaaliyeed meel kasta aad ku sugantihiin hambali aan leenahay dabcan fadxiisu ma sha Allah qiimo badan ugu jawaabtay su'aasha ka soo qaad hadda calanka uu noor yaala maxaa dareemaysaa leeyahan midda kale aan ka su'aasha wada waxay tahay waxaad ku sugan tahay dalka Kenya dabcan marka Soomaaliya joogtay hadda ka hor different hadda waxaad ku nooshay dalka Kenya maxaa dareemaysaa isbedel horta markaan Soomaaliya joogay calanka markii loo dabaaldegaayo ha ahaato 26 Juun ha ahaato mataqaanaa kooda luuliyo habeenkii dhan banaankaan ku dhaaysan sida ayadoo mataqaanaa oo lagu dabahaayo cagaheena boorka rafaadka naga muuqdo shaydaan inuu nagu shaqaysana anagoo moodaa soo xaroon jirnay dabcan ani xilligaas oo xornimada ay jirtay waxaan kala socdaa mataqaanaa waxyaalo badan baan kala socdaa laakiin mihi qof ku soo gaartay xornimada mataqaanaa xilliga la qaadayo qof joogto mi laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ka mid noqon lahaa gabdhii markaas u dagaalameen ama xaawataaki iyo mataqaanaa insha Allah ana booskooda kale waa gali doonaa qof Soomaaliyeed oo dhammaan mataqaanaa u siman tahay insha Allah heer meesha ay isla damacsanaa halkaas inay Soomaaliyeed dhan u istaago luuliya kasta meel kasta lagu dhigayna dadka Soomaaliyeed kala qayb qaato mataqaanaa waxaan dareemayaa farxad weyn calanka Soomaaliya siir ma lagu keenin dad u dhinteen mataqaanaa dhib badan loo maray hadee aniga kaligeysaan farxad u dareemayna hadaan xirtay maanta dhan markaan mataqaanaa aan raadinaa inta daanka ku dhagsay inta samee aan dhahay farxadda muujinay Soomaaliya okay ma sha Allah wadilada ba tahay walaasha ku xigtaan weydiinaya muno see dareemaysaa caawa maxay ku tahay haweenada kaaga duwanta dabcan see dareemaysaa caawa shucuurteeda aad bay u kacsan tahay Soomaaliyada dareemaya صح waxaan ka soo fadhiisay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan hambaliyo sham kusoo dhawow
wadhow walaalka horta hore ani horta weligii nabad waxa lama arkin laakiin wadankan waxaa waaye wadankan mar walba oo kooda luuliyo mise 26 la gaaro farxadan dareemo wallahi lama soo koobi karo caawan habeenada ilama sinno waa habeenkii horta hore aan gumaystaa ka xirunay saasay tahana yaa anoo weligii nabad arkin stiil wallahi billahi habeenada ilama sinno aad baan u faraxsanahay أنا شعورتها لك أحسن lama soo koobi karaa wallahi billahi hadda aniga koo iyo laba kama dhigi kari ina halgamaha isku haystaa insha allah halgamaha allah iga dhigo horta wadanka waa jecelnahay soomaalida waa wada wadaniyiin waa wada wadaniyiin inkastoo haddana aan kenya ku noolahay oo hadeerto oo waqti xun lagu jiro corona iyo waxaas ay jiraan kenya laftarkeeda waa laga dabaaldegi jiray kooda luuliyadii hore oo kale meel waa soomaali o dhan isku wada imaaday marka waxaana midaynaayo oo isku wada keenaya waa maalintan soo maaha marka waa kana hadeerto maanta walaasheen baan casuumtay waa ku mahadsanta horta hore casuumaada noo fidisay calankaana ha jiro ha joogo marka waa mahadsanta walaalka وكاسا شعورتي وكذا اوكي شمس سؤال كلام كويدنا waxay tahay dabcan adigoo muwaadin Kenya ku nool in badan Kenya ku soo barbaaray waqtigaaga badan dabcan intaan ogahay see dareemaysaa adigoo wali Soomaaliya tagan wadannimada wallahi asleed dabcan wallahi billahi niyo horta hore ani waligay soo horta ana Soomaaliya horta Soomaali waa tagay laakiin waligay kooda luuli kuma dabaaldegin oo inta baan ku dabaaldegi jiray saasay tahana wallahi waxa ka jeclaa malaha insha Allah sanadka soo socdo hadduu ilaahay yiraahdo wadankeena oo nabad qaba arjeynaya amin bargees Allah ama haysa ku dabaaldego insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo ya meelo wadiyad horta qurbahan iyo meelahan aan joogno niyo horta waa ku daalnay barakac waa la dilay marka insha Allah wadankeena Allah noo xoreeyo wadankeena Soomaali Allah midkooda dhigo sanadka soo socdana waxaa rajeynaa inaan ku dabaaldego aan farxadda la qaato dadkayga Soomaaliya gudaha wadankayga Soomaaliya ya waliba dhexda maxaa dhihi jiray madaxdeena hor fadhido ya inaan qaataa jeclahay marka khiyaarta sharafta leh اوكي سؤال كلام كويدنا waxay tahay maadaama wiilad u daayar aad tahay adiga kugu socotaa dhalinyarta da'da oo kale qurbaha markay aadaan calankan buluug maxay u tooraan calamada kale wadamada shisheeye horta wallahi billahi nin ayaan daran waayo horta ninka calankiisa intuu ka faano horta waxa qurbaha ku joogto horta waa calankaaga soo moogay mar waliba Soomaalinimo waa hatta dadkan hadda Soomaali ahayn wax meel ku wada malaha qurbaha waxa u joogtaa waa calankan ama se Puntland ka soo jeed ama Somaliland ka soo jeed ninkan unbaa lama huraan marka ninka calankiisa tuura ninkaas waa nin ayaan daran waxaan leeyahay dadka Soomaalida dhalinyarta anigoo kala haddaad nabad arkin nabad way soo socotaa way xulan doontaa insha Allah marka calankiina lama huraan waayo weligiinba wata madax saarta اوكي وما سنت ولا شيء الشعب قرب يستحي سودو سيد كدر مساعه وكل maxay ku tahay habeenadu ka duwan tahay misoo habeenadu aad soo marto oo kale horta alxamdulillah caawa habeenadu ay duwan tahay waa habeenka xorriyadda oo kooda xalay Soomaali meel kasta joogaan hambali اوكي dabcan maadaama ka dhawaajisay kooda luuliyo dareen noocaad qaas ay ku tahay adiga ahaan maadaama ka dhanaan wada dareemayno adiga ahaan see dareemaysaa gabar aad u daayarna waa kala jooga wajigaaga ahaan iyo shaashada dabcan markii ugu horeysa mise waqti badan waa soo dabaaldegtay markii ugu horeysay ma waqti badan oo laakiin markii koowaad oo Kenya ku dabaaldego waayo waqti badan Soomaaliya ku soo qaatay wada si badan anaka dhalataya inta lagu dabaaldegaysa marka gabadha waa iga si badan tamatay hadda Soomaali ku dabaaldegaysa marka alxamdulillah waa faraxsana caawa habeenada way iga duwan tahay Soomaaliya اوكي hadalkaaga ayaan wax ka dhadhamiyay dabcan wadamo kale ee wadada dalka hooyo Soomaaliya dabcan ku soo dabaaldegtay hadda waxaad joogtaa Kenya qaasatan Nairobi dabcan caawa waxa ku dabaaldegaysaa guri dhexdiisa laakiin marka Soomaaliya joogtay banaanka ku dabaaldegi jirtay 4 saac marka maxaa is leedahay maxaa keenay bedelkaas waxaa waaye Soomaaliya waxaa waaye maxaa dhihi jiray waa freedom waa wadankaada waa dalkaada laakiin inta waa dal shisheeyo وانا فاهم كتاب لكن كورونا سؤالي اوكي ما صدق عشان معان وغاسك يقصد دو عاو سيكون هذيك اهم عاو هرت ميد كواد وان فرحسناهي ميد لبادنا maxaan ku dhahay waxoogaa murigan oo yahay saan faantay murigada maxay horta mataqaana sanadkii hore soo dabaaldegay amal maxaan ku dhahay oo Soomaalida intee soo wada raacday
maxaan ku dhahayo toos loo dabaaldegay ma fahantay Soomaali toos toos. Soomaali toos la isku waraacay maasha Allah waa la dabaaldegay laakiin sanadkan ma jiro ilaa corona iyo waxaas aan xirxiray ma fahantay murugadan waxa keenana corona waa balaa ilaahay na qabtay mideeda kale waxaan ku faraxsanahay maasha Allah maxaa waaye waa xorriyadda aan helnay dabaaldegayna iyo Soomaalinimada maxaan ku dhahayo saa u dabaaldegayso midaas aan ku faraxsanahay ma fahantay اوكي وجهك waxaa iga muuqdo farxad aad iyo aad u weyn dabcan calankaad gacanta ku wadataa ana ka muuqdo waxaan ku wadanaa dhabarka iyo qaar waxay ku wataan qori madaxa u saaran tahay dabcan adiga ahaan maxaa matalaysaa SYL dhalinyartii qaadana matalaysaa sax kuwaas matalaa ma fahantay maasha Allah marka farxad gooni ku tahay ana kana sana waxaa ana nasi badan tahay inaan dhul dhigataa marro sana waxaana maanta dhunta marra jilibkan saarta marna gacanta saa waystaa inuu dhul gaarataa marro ma fahantay okay walaalaha waayaha cusub heesta ay soo qaadeen ka hadleen codkooda ada ahaan may ku taabatay mise aad waxaa ku jirta dadkii taageersanaa ma kuwaas maxaan dhihi lahaa haddaa nolol ku arki lahaa inaa maxaan ku dhahayo godinta u qoda inaa dugaaba khatar ma fahantay زايد أو حمادي دولة عمل لم عارضه مدة كلينو أمين كان هذا أنا دولة تاجر وما هنينا محن كده هاي لم عارضه حلقة لو بهنا شعبك يوم محن كده دولة اللي إسراع ده سمعنا فاهمين ما هنينا دولة عمل كان عمل إنا سورجي السنة اوكي طبعا ما دام كينيا كسر بارتي كينيا كسر بارتي ما دام هذيك كسر بارتي ولاد داير تاي لوقد هذا انا كدرين مايو لوقد الصومالي انا ديب كل سوق بسنه ست عايش ديب الاولى وتدرك والله بان فعلا ما فهمت هذاك هو يقول لي ما عرفت انا قلت يقول لي ما عرفت لكن هو فرحسن لكن كذا شيء مؤدي قلبي قلبي وكاي سومالي سجوا so ان شاء الله رجعنا انا waxaan ku dhahay انا dhiman ina aad insha Allah halka ka soo dhaxgalay horta Kenya horta wadankeena labaad waayo horta sanadkan corona iyo waxa jiro sanad kasta waa ku dabaaldegi jirnay iska daa xataa guryahooda oo KICC oo dad loo ogoleen sanadkii hore aan ku qabanay kooda luuliyo oo isku imaado Soomaaliya isku wada imaaday marka horta kuma caasinayna Kenya waa wadankeena labaad waa wadan jiro waa wadan qaxootigeena soo galay wadankan marka laakiin waxa ka sii fiicnaan leh anaka wadankeeni si nabad leh ugu hambali uga dabaaldegno kooda luuliyo insha Allah maantaasna waa sugayaa ma rajo dhigin weligii nabad ma arkin laakiin rajada weli ma dhigin waa rajayna insha Allah maantaas way imaan doontaa ninka Kenya ku dhashay ninka Sweden ku dhashay hal meel inay ku dabaaldegaan insha Allah haduu Ilaahay insha Allah adaan ku socday su'aasha ahayd maadaama ay Kenya kusoo kortay in badan oo waqti soo qaadatay walaalaha Kenya ku dhashay dabcan adiga oo kala ku dhalatay sidaan filayo Kenya bas meeha qurbaha dhan ma qurbaha Kenya aan kala hadlay qurbaha iska daa Kenya ahaan maadaama wiilkan hadda ila joogo Kenya maadaama ku dhalatay walaalaha kale oo Soomaaliya ku sugan xilligan dabcan adiga ku daabanayo maxaa leedahay waa adoo Kenya ku dhashay maanta waxa jeceshay dalkaaga inuu nabad noqdo walaalo Soomaaliyeed waxa jira dalkooda jooga aan jecelayn dalkooda inuu nabad noqdo oo mar walba ka doorbidaan inay qurbahaas aalaan maxaa walaalahaas ku dheelay maadaama ku doorbid video gaari doono meel badan horta waxaan leeyahay walaalahay Soomaaliya insha Allah horta ilaahay nabad oo dhigo ma fahanteen mideeda kale ما نفهم نوع tan mid waxa fahmaysa maanta way ka weynta tan u fahanteen ما فاهم way fahmaysa marka insha Allah Soomaaliya nabad la ka dhigo آمين mideeda kale insha Allah fariin u dir marka walaalaha walaalahay maxaa leeyahay insha Allah dadka horta burburka wadaan insha Allah iyo waxaan maxaan ku dhahayo dawladda dad qaar maxaa camal oo luuqluuqyasha camal dadka maraan dadkaas insha Allah ilaahay qabto dadka maxaa ku dhahay dadka burburana ilaahay qabto insha Allah Soomaaliya inay nabad noqon doonto waan rajaynaa qof دعيس أقبل وأنا قاعد حاجة كنت بلدينا حاجة مدة كله إن شاء الله قاعد يسوق سوشنا إن شاء الله ولا ليه محرجين إن شاء الله إنك قاعد سيرين دون إن شاء الله Soomaaliya ودن تلكي هويو أصلا نبض إن شاء الله خير رجال أصحابي marka waa ka su'aasha hadda ninkan ay weydiiso kala jawaabayo qofka Soomaaliya joogo oo Soomaaliya wadankiisa joogo iyo qofka Kenya ku dhashay maanta Kenya ku soo barbaaray horta qofkaas uu naga sii badan yahay waayo qofka Kenya joogo wuxuu arkay dad oo ka duwan asaga jirkiisa midabkiisa ka duwan
soomaali aan ahayn waa la cusuriyeeyaa dadka soomaaliya jooga cusurinimadu ma arkin horta inkastoo kenya cusurinimo laga aqoonin laakiin saasay tahay xataa guriga shaqaalada kaaga shaqeynaysaa marmarka qaar marka iskhilaaftinayso wadankaaga ma ahan wadankaaga ma ku noqon marka qofka wadankiisa ku dhashay oo wadankiisana ilaa hadda joogo wuu nagala sii badan yahaa waayo marmarka qaar waxaa isdhahdaa wadankayga haddaan joogi lahaa waqtigaa saas isdhihi lahaa marka dad badan oo saas ayaa joogo dadka qurbaha sii joogana waa naga sii daran yihiin bo aad bay loo cusuriyaa dabcan su-aasha aan wiilka weydiinay waxay ahayd dhalinyar soomaaliyeed ayaa mar walba ka doorbidaayo dalkooda inaysan dhismin anigu ma arkin odayaasha ugu dhawaa ma ahani waxa dagaaltamay waa dhalinyar waxa wadanku ka digilaa waa dhalinyar waxa raba inay tahriibaan waa dhalinyar dhalinyartan soomaaliya joogo usoo baraarugaya inay sii tahriibaan dalkooda burburinayo fariin maxaa u faraysaa horta hore fariin waxaa u fari lahaa horta hore qofka wadankiisa asagaa dhisan karo marka wadankaaga adi markay aad wadan kale u ordaysid aad leedahay wadan kalaas horumar gaarsiinaysid wadankaaga horta wax walbaa tahay wadankaaga laga bilaaba marka oday inuu wadankaaga kuu dhisa haddaa wadankaaga ku sugan tahay oday inuu kuu dhisa hadaan sugi wadankaaga adaa dhisan kartid adaa futurega beri ah adaa lagu sugaaya marka wadankii adigu uu ku sugaya haddii aad waa ka taariibaya mise waa kasii soconaya wax wadanka kuu dhisaayo ma lahan qof walbana hadduu kasoo tago wax wadankiisa dhalinyarta marka maanta hadday gacantiis qabsato annakaan kenya joognaa intaan idin imaano haddaa wax qabatiin inla qaban karna xataa marka haddaad inta kasoo carabtiin oday maanta ka sugin oday oo xildhibaan amase oday madax ku ah adiga inuu wax kuu taraa sugaysa waxaa la dhaha charity begins at home ingiriisku ma maha adiga iska bilow horta waxtarka adiga iska bilow adiga maxaa qabatay intaada qof gacan ku fiiqin adiga maxaa qabatay isdheh marka dhalinyarta waxaa leeyahay gacmaha isqabsada wadankiina dhista okay dhammaantiin walaalahan meesha uu jooga hal su-aal aan weydiina oo maanta wiil oo kenyaan ah oo kenya inta laga yaqaano oo caan ah hal su-aal weydiiyey ana xataa ugu jawaabay wuxuu yidhi haddaad soomaali tihiin maxaa 26 iyo 1 luulyo xilliyada dabaaldega bis leeyihiin arkaan soomaalinimadii muujisay markii lacala hadda maanta caaw ku hoosoma beri laba marka gaar saddex la gaaro nin walba dugsigiisa walaaqana wadanimada meeshaas ku egtay marka ma inta calankan la heystaa iyo fanaanada la qabo miyaa wadanimada mise qof walba wadankiisa si dhabada u jecel yahay asaga macnaha ka wada dalkeena Kenya wax yar doo dhaco waa muujinayna waxaan mar walba ka doorbidana hadda kay wadada aragtay qof dhaqaaqay ma aragtay macnaha waxa ku cadeynaysa inay dooli jirto laakiin Soomaaliya dul madaxweynaha maanta ku dhawaaqo farmaajo cilmiga soconi sanka farta laga gelina waana la soconaya marka arrimahaas su'aalahaas weydiiyay wallahi ugu jawaab sabab waxa ugu jawaabnays horta horta Soomaaliya horta hadana madaxdayga horta kiiha anaka waa wala dalana waa calash waa inaan ka soo wada baxno marka Soomaalinimada ma ahan dhaq ah xiranaysid mase calanka ya calan aad soo xiranaysid aad meelaha la imaanaysid maaha Soomaalinimada inay ka go'an tahay waa niyadaada inay horta hore inay waxa ay Soomaalinimo ay ku jirto markii qof Soomaali xataa iska daaliga qof Soomaali waa halka xataa markii aad lagu haysto mase lagu bahdilayo waa inay u istaagtaan wadanimada runta waa midaas marka annaka horta hore horta annaka dhalanaya horta hore maana arkin nabad wax la dhaho Soomaali la hadeertan waa wax ay nabad la gaari la adahay waa qabiil iyo waxaas maskaxda uga jirto marka Soomaali qabiil aan iska saarno qabiil maskaxdeena aan ka saarno markaas la horumar gaari karnaa adiga maanta qabiilka tahay hadii aad meel inta ku xirtid musqash aad ku falaashtid ya horumar waa gaaraysaa laakiin hadii ina hebel haduu kan adiga maanta Soomaaliga hadii horta lagu fiirinayo ani ila mu dhalan mas ina hebel ma aha daa leedahay ya markaas oo kale wallahi wax la gaaro Kenya waxay gacanta isku haystaan ma kala jeclo kan walaalkiis miya haduu haduu ninkan nin Kenya sheegana aniga Soomaaliga haddaan Kenya inta sheegto way iso gurmanayaan Kenya ahaan ay igu caawinayaan marka Soomaaliya aan isqabsano gacmaha aan isqabsano annaka wadankeena wax ka dhigan karno qabiilkan aan iska deeyno maskaxdeena nooga qofulan hadeerto odayaashii dadkii waaweynaa un bas dhalinyarta horta hore waxaas maskaxdooda ka saaraan wax qabiila dhaho maanta hadduu nin reer hebel amase nin kula dhashay adiga haddii uu xilku haayo ninkaas waa taageera amase hadduu gardaran yahay xataa waa ku taageera ha dhihin qofka adiga haddii aad ku aragtid wax qaldan kasoo horjeeso haddii Soomaalinimo aad ku aragtidna wuxuu raba ha ahaado ku taageer marka qofka saas un baa horumar ku gaari karnaa dhar la xiranayo iyo naga daaya shucuurtiina na tusa Soomaalinimadiina tusa qabiilkana naga daaya saasaa dhihi lahaa Soomaali waxay ilaa hadda horumar la gaari lahaa waa qabiilkaas kaas bas waay maasha Allah sham ra'yigaaga wanaagsan dabcan walaalaha Soomaaliyeed dunida caalamka ku sugan way ka faa'iideysan doonaan qofkii u noqoto baraarug iyo qofkii u noqon doonto wuxuu way araga hadal ugu wanaagsan waad sheegtay oo qiimaha badnaa qof bilaadan inuu ku hadlo ku haboonaa dabcan waxaan ku soo laabanayaa Fadxi
adiga dabcan su-aashan idinka dhan idin weydiiyey su-aasha dabcan sida tan u dhacayso maqlaysa soma waqtiga xun waqtiga ay soomaalida u dabaaldegayaan 26 juun iyo 1 luulyo ee xilliyada xalfadda ay soomaalida u dabaaldegayso dabcan wadaninimo dhan naga ahaa mise waa istustus aan leeyahay horta riwaayad sooraan daawada wuxuu yiri nin baa magaalo ku soo arkay sheekh ah sheekhu uu wacdinay wuxuu yiri haddii quraanjada geedka ku hoos jirto haddii la gubo oo dhuxul geedkaas laga sameeyo quraanjadaas qofkii dilay ma la soo qabanaa ma la qasqaasi qasqaas ma lagu leeyahay qasaas wuxuu yiri ma macnaha illa dilo qofka macnaha markuu qofka qof dilo maxaa la dhahaa waa loo dilay ma fahantay waa loo dilaa waa loo tooganaa oo diinta islaamka aba qabta hadduu qofka qalad ku dilo soo maaha adigu weligaa ma maqasho dhaa qofaa quraanjo dilo oo qofaa loo soo xiray ama qofaa munax dilayo waa loo soo xiray waa la toogtay ma maqla inuu yidhi marka wuxuu yidhi shiiqa ku wacdinaya ninkaas shiiq maya waa nin iska hadluu dhahay marka baadaadi marka ninka hadda wax ku weydiiy waa nin iska hadlay waayo soomaalinimada markii la dhaho wadaninimo markii la dhaho number 1 wax ka horeeya ma laha waaja labadan maalin oo calankan iyo 1 luuli iyo 26 kale leeyahay iska dhaaf laakiin haddii wadaniyad dhab ah laga hadlayo soomaali cid ka horeysa ma jirto maanta wiil soomaali haddii meel ama askar ku qabato sharci la-aan yahay ama meel lagula dagaalayo dad kenyaan la dagaalayaan ama uu dhib qabsado qof soomaali marka tagaayo سؤال كان دوجينا إلى أنا صفري إلى ودون بدن تقسمه حقيقة النقطة واحد هي الصومالي ذا قربها الجوقف أيام درسين ودنيين ماذا لكن الصومالي دتك السجن ودنيين ماذا حكم يقانن حقيقة النقطة كان هذا هذا ودنيين ماذا الدريم يصير وأنت هذا كينيا مادي وأنت هذا أرتين عقبات كينيا تصاريع هرت متك لا جرت صومالي هرت رمت مركل إسكو شغل قبيل عد كهاني سمي جرت وحرمت إن الله قبلنا في عن وقت runta markii laga hadlo Soomaali wax kasteeto qabiilka ka hormariyaan maamul gobolada hadii la soo dhiso waxay dhahan qofku hore wuxuu dhahay reebel meeqaan ugu jirta anaga meeqaan wasiir naga la siiyay soo xafaantay maaha aqalka sare meeqaan ku leenahay qabiil waa waxa hadirta Soomaaliya wax lagu qaybsado 4.5 waa qabiil la sharaxay oo muusig iyo laxan loo sameeyay mafahanti marka idinkoo qabiilkiina wadatiin qabiilkiina waa ka tegina deertiin qabiilkiina idinkoo wadatiin tan Soomaalinimada in laga hormariyo oo mataqaanaa wadankaaga uu sii burburaa markasta hadaa ra'yi adi aa keentay oo adi aa ku talisay hadduu mataqaanaa qof Soomaali ama dhul Soomaali ama lagu qaato ama qof Soomaali wax lagu gaarsiiyo adaa dambiga wax kale marka maxaan dhalinyarada Soomaalidu sheegaa inay dhiirigelin iyo wacyigelin ay sameeyaan mataqaanaa social media hadeerta waa meesha ugu horeysa oo wax lagu dumiyo ama wax lagu dhiso markii runta laga hadlo waayo maanta taxadirtaan ani inta halkan aan ku jiro war badan ay dhaafaan leh saanta u baxdo waxa furaya qadkan furaya waxba soo dhacay warba ay soo dhacay ma fahanti waxyaalo oo dawladda lagu dhaliilay waxyaalo lagu amaanayo waxyaalo mataqaana dawladnimada looga hadlayo ku arkaysa marka dadka Soomaaliyeed maxaan leeyahay ama dhalinyarada waxaan leeyahay idinka ku wada jirtiin social media nooc kasto yahay maxaan lahaay waxa ugu daayay social media TikTok ugu daayay ma fahanti marka kan ugu daadiyay midka ugu daada weyn baa isticmaashaan maxaa ka galaan isticmaashaan sida qashinkii waxyaalaha oo Soomaalinimada iyo wadaninimada iyo wanaaga oo loogu gudbi karo wax kasto caqabad ah inay Soomaalida isku booriyaan horta ka soo xigale horta qabiil horta qofku ka go'ay ma lahan diintan oo quraanka xataa uu sheegay iyo diinta way sheegtay qabiilka looma sameeynin in la isku takooro iyo hebel inuu ku takooro in isku gartaa lagu takoore Soomaali horta hadana si qaldan qabiilku isticmaalna qabiilkaaga horta ma uu ka guuraysid bawliga laakiinse qabiilka waxa qof horta qof kala dheeraysan iyo qof ka aab fiican ma jirto 9 bilood ku dhashay 9 bilood ku dhalata maxaan ku kala duwanahay wuxuu rabaa qof 9 bilood ku dhashay qof 8 bilood mise 7 bilood ku dhashay kan 7 bilood ku dhashay xataa waxa cunto cunaa soo maaha marka 7 bilood ku dhalo 8 bilood ku dhalo 7 bilood ku dhashay fandi ya marka horta qabiilkaaga waa horta waxa waa identity-ga la meelda waa mid lagu garanayo laakiin qof qabiilka uu isticmaalin sida qaldan siiba dhalinyarta la hadlaya darto odayaashu waa dhaafeen Soomaaliya odayaashu waqtiga waxay soo qaban karaan waa soo qabteen waxay soo haleyn karaan waa soo haleeyeen dhalinyarta waa jiilka berri noo hogaamin doono noo talin doono marka dhalinyarada qabiilka naga dhaafa marka saas la yahay qabiilaysi naga daaya Soomaaliya ha noolaato ha israacdo
Soomaaliya hambaliyo meel walba dunida caalamka ku joogtaan caawa kooda luuliyo ayaa u baaltegayna haddaan nahay faamilkeena farxe fadlan hadeeta marka ugu horeysa ka mid noqon ما شاء الله فاهم كده هذا بقول هاي عاو حمد والدينا كود اللولي ميلو بس ما رجعت علينا هنبليو ايوه علينا عاو شام حلال عاو حد رمش ما دام فهمت عاو والله بالله هذه بنات الاجل صوت بعدين عاو ايش والله بالله كل يا جماعه ما يا تمسك تكسي خرج كذا أصحاب قرب بدنا وقتي يلا قادنا ما شاء الله والله. مرجع عاو كنت هبينا هبينا. هبينا يقدر متى وانا نسيت ولا هبينا. والله شو بدي أقول لك حيلا بتعرفوا عاو نسيت. والله مش أنا جري لمتى. مش ما هو كم يغني ما وراح جمناي. سنة وبروح جمناي. والله قال طبعا ماشي نقل ساعتين وفتحنا اوفيشال فاهمين كنا دميسترنا عاوه وحيد والدقن كود اللوليا ملول بدون العالم كانوا وصلوا انتهي هذا الصومالي طبعا ما دبل دقتي هذا دبل دقن وحنو سنتهي الهك عافيه هذا حنو سنين وسكر كاغا تكتنا حكوا لنا مواد صومالي نقو وقتك كفايه صوتك دم ربك صوتك دم كبكسو يبشان او كلا كو ادم خليga ku aadmi doonta Allah wacala ma dawla cafadku u gaarsiyo eedo familkaaga adoo caawd wal digay ma daw video aan dhaxda aan ugu soo jirno wali barnaamijkeena maxaad adiga ahaan dhankaaga ku macsalaamin walaalahay
waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed soo dhawaada mataqaanaa channelka daawanaysiin waa channelkiini YouTube-ka daawanaysiin waa Fatxina hadee maxaa wax oo la iska rabaa jirta oo loobi karin ma tahay gacantiin ku jireen صح ininko jiifadaas baa aqal kooda luuli jirteed nagu حوالي دريسي كود لون أنا جوا دكتور أوكي منو سودو ولا شيء wadhawa laabkii waxaa leeyahay Soomaali meel kasta joogta hambalyo subscribe-kana lagu cimaamadaha la soo dhaweeyo أوكي maxaa ka codsanid walaalaha maadaama hadda video dhex lagu jiro walaalaha waxaan ku codsan lahaa inay soo dhaweeyaan subscribe-ka noo saaraan يفهم كم النقطان أوكي ما شاء الله هاي شام سودو akhyaarta sharafta leh dhammaantiin waa idin salaamaya horta habeen qurux badan waa caawa calamo qurux badan waa xiranahay dhalinyaro qurux badan waa nala joogtaa yaa looma kala harnaa ku dhahay marka adinkana sidiinoo kale guryihiina ku dabaaldegaysin inta guryahooda naga nasiibka fiican waxay ku dabaaldegayaan banaanaha si aan caadi ahayn ay u qaadanayaan waqtigooda inta aan ka nasiib fiican hana ayakana mana gurigoodana bay ku dabaaldegin marka akhyaarta sharafta leh horta hore hambalyo meel walba dunida ka joogtiin si kal iyo sharaf iyo cizo mudan ayaa idin wada salaamaya happy kooda luuliyo marka calankan ha jiro ha joogo insha allah adinkoo caafimaad qabo sanadkiisa kale allah isku keen wada keeno midnimo qaran iyo Soomaaliya oo سودو باي wadhawahay asxaabta waxaan leeyahay haddaad hore noola joogteenna laagta nagu caawiya haddaad nagu cusub tihiinna subscribe أوكي ياسر كسودو aad baa umahadsantahay walaalkay qaaliya waxaan waqti ku qaadanaa farxad la qaybsanaa muwaadiniinteena dadkeena hooyo dowladeena iyo midnimadeena markasta waa ku faanaa calankeena waxaan leenahay jiro joog markasta waxaa marti unahay gurigeeda waqti kula qaadanaa farxad waqti kula qaadanaa ku dabaaldegana caawa kooda luuliyo walaasheen Fatxi aad baa umahadsantahay ayadana farxad iyo waxaan la soo koobi karin gurigeeda ku qaadanaa waxaan leenahay janalka naga daawansan Fatxi official like share comment inta bay loo kala harin meel kasta aad joogteen farxad iyo kooda luuliyo iyo qarannimo markasta nagu jooga dadkana waa jecelnahay أوكي فيصل كسودو ولا ما شاء الله waxaa leeyahay oo Soomaali meel ay joogaan waa islaamay waxaan leeyahay marka labaad happy kooda luuliyo aan leeyahay dhamaan waa aragteen inaan macnaheedu waa calamanahay oo naga muuqato wadnimada iyo qiimada ay naga muuqato waa aragteen waxaan leeyahay macnaheedu janalka naga taawanaysiin waa Fatxi official adoo jifixta saan gacmaha dheer ku like-tana ku darso share-tana ku darso comment-gana raaci wixii fikradeena nagu soo qoro hoos naga xasidina waana maasanta walaashay Fatxi maadaama ay xafladan munaasabadan qaali ay noo dhigtay mar labaad iyo mar boqolaad waxaan leeyahay Soomaalida happy kooda luuliyo هذا الوقت وانا سدمين موازين كسدمين هذا الانتين waxaan leenahay Fatxina hadaad cusubtihiin subscribe comment like share kulligin dadka kulena la joogan insha Allah waa like iyo video daawashada aan rajeyna insha Allah farxadna daawanaysan aan rajeyna insha Allah anoo ku cishir rabaa hadda wasiir daawar rabaa markaan soo dhigo wasiir daawar rabaa أوكي همبلي علينا الصومالي محمد مالو بيجوغان ويدينا همبليينينا waxaan leenahay midnimo qaran dalkeena anagu ma dhisan karno anaga mar waliba aan ka hormari karno dunida caalamka wallahi marka la furayo garoonkii aad arkaysan waxaan dareemay anigoo daawanaya Arsenal oo kale wallahi billahi marka xalay Soomaaliya ambali ما شاء الله وتجينا وحلينا Soomaaliya Soomaaliya إن شاء الله ما شاء الله ودافت إن شاء الله بيصير مرساته ليش إن شاء الله إن شاء الله هم الفاتحون وسوع العدادو إلى عرجيو عرفت أنت عليو كانوا شقين عليو على عليو أمر قعمها Soomaaliya Soomaaliya Soomaaliya